أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مقعيقو وسفيان شيخ أحمد شيخ محمد قعندير waxaana hogaamiyaha xisbiga talo ku nool ee waloolaya in wadanka Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka shariicada Allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam xisbigaasi oo la aasaasay 2001 dhawaanahan waxa aan ku jirnay olole aan ku doonayno in aan wadanka Soomaaliya ku xukuno diinta islaamka anagoo xisbiga talo ku nool anaguna aan musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda islaamka ee Soomaaliya waxaan shacabka Soomaalida weydiisanaynay in ay nagu taageeraan inaan ku maamulno wadanka xukunka islaamka dhamaanba waxyaabaha keenay dhibaatooyinka wadanka u keenana aan ka tirtirno sida daraadeed waxaan codsanaynaa dhambaalkan talo ku nool qof kasta oo Soomaali oo islaama jecelna in lagu xukumo kitaabka jaamacada diinta islaamka inuu dhambaalkan si faafiyo waxyaabaha talo ku nool aanu ololayno ama arno wadanka inaan ku xukuno waxa kamid ah koow inaan tirtirno dastuurka gaalada inoo yaala maantay ee ku bedelno dastuurka islaamka labo inaan tirtirno waxa la yiraahdo democracy-ga oo tiirkeeda ugu dhaxeeya uu yahay waxa la yiraahdo laico ama in diin waxa la yiraahdo meesha laga saaro waxay ka soo horjeedaa si toos uga soo horjeedaa diinteena islaamka sidoo kale waxa aan rabnaa inaan ka bixino meesha ama ka tirtirno waxa la yiraahdo haybta koorka taasoo runtii dad badan oo Soomaaliya oo islaamo oo walaalaheena aan banaysanay cirdigooda sharaftooda iyo maalkooda aan ku xadgudubno dilno arintaasi waa ciqaab Allah waxayna si toos uga soo jeedaa shariicada islaamka haybta koorkaasi talo ku nool waxa ay ballan qaadaysaa inay tirtirto sidoo kale waxa aan tirtiraynaa ama meesha aan ka bixinaynaa in qof wata laba baasaboor uu soo dhaarto wadan kale dastuur kale inuu difaacana u soo dhaartay inuusan wadanka Soomaaliya wax ila uusan ka qaban hada xil siyaasadeed ama shaqo dawlad uu qabto sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa talo kulan hadanahay in aan bedelno calanka iyo astaanta qaranka oo aan hore u sheegnay calanka Soomaaliya maanta aan haysanahay inuu sanahay mid qof Soomaali uu sameeyay ka turjumin dhaqankeena iyo diinteena sidoo kale ay ku jiraan calaamado diimo kale oo ka soo horjeedna diinteena islaamka isla markaasna aan shaacinay in malaayiin Soomaaliyeed ay nacabeen oo ka soo horjeedaan qodobka ugu dambeeya ee talo ku nool ee aan rabo maanta inaan si qoto dheer u faahfaahiyo waxay tahay talo ku nool hadii aan ahay waxaan qornay dawlad cusub oo aan ugu talagalnay inay xaliso dhibaatooyinkii soo jiray ilaa 1960kii ilaa iyo maanta sida inqilaab wadanka inuu la wareego generaal kaliya taliye inuu soo maro inaan galno dagaal sokeeye inay dhamaato kalsoonidii aan ku kalsoonayn qaranka iyo dawladnimada inay dhamaato in diinteena koowaad ay noqoto qabyaalad wax la yiraahdo waxaan jeclahay marka shacabka Soomaaliyeed inay la dhageystaan ama nala dhageystaan hadaan reer talo ku nool dawladdaas cusub ee aan ugu talagalnay inaan ku xalino ayadoo qaadanaysa dastuurka islaamka kitaabka jaamacada iyo sunnada rasuulka dawladda cusub qaabka ay u samaysan tahay oo aan ugu talagalnay inaan ku xalino dhamaanba dhibaatooyinka wadanka soo maray iyo kuwa aan rajaynayno inaysan waligoodna soo gaarin aan bilaabo dawladda marka ugu horeysa magaca aan ugu yeerayna waxay tahay jamhuuriyadda islaamka ee Soomaaliya waxaan nahay dad islaama waxa haboon hadii aan nahay islaam inaan isugu yeerno magaca aan leenahay dad badan oo Soomaaliya oo maanta xilka jooga waxa ay ka cabsadaan ama ay ka xishoodaan ama la qaldanba inaan isugu yeerno jamhuuriyadda islaamka Soomaaliya annagu reer talo ku nool hadaan nahay waxaan u taaganahay diinta islaamka inaan hirgelino jamhuuriyadda islaamka ee Soomaaliya waxa ay leedahay saddex hoggaan saddexdaas hoggaan waxay kala yihiin hoggaanka qorsheynta ama hoggaanka shura oo ay hoos yimaadaan dhamaanba xeerbeegta sidoo kale hoggaanka labaad wuxuu yahay hoggaanka maxaakiimta waxa hoos yimaada dhamaanba maxkamadaha oo dhan wixii la xiriira sida booliiska ciidamada asluubta waxay leeyihiin ciidamo military oo si gooniya u tababaran si khaas u tababaran oo hoostaga maxaakiimta iyo ciidamo sirdoona oo iyaguna si khaas u tababaran oo leh sirta kuwa raadiya iyo kuwa sirta raadinaya kuwa ka hor yimaada espionage and counter espionage hoggaanka saddexaad ee dawladda talo ku nool ay yeelanayso wuxuu yahay hoggaanka fulinta waa hoggaanka uu ka kooban yahay ama ay ka kooban yihiin dawladda sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirada iyo wixii raaca dawladdaasi waxa ay leedahay
ciidamo militariya oo si gooniya u hoostaga madaxweynaha sidoo kale waxay leeyihiin ciidamo sirdoon aan ku laabto marka aan wax yar si faahfaahiyo dib aan ugu laabto si aan gudaha u sii galo aan ku bilaabo hogaankii koowaad ee sheegnay hogaanka qorsheynta ama hogaanka shura oo ay isugu hoos yimaadaan dhammaanba dadka loo yaqaano xeer beegta golaha hogaanka shurada ama hogaanka qorsheyntu waxa uu ka kooban yahay laba gole golaha xildhibaanada iyo golaha aqalka guurtida golaha xildhibaanada aan ku hormaro golaha xildhibaanada waxaa si toos ah u soo doorta shacabka Soomaaliyeed waxaana lagu soo doortaa codka shacabka hase yeeshee golahaasi ama xildhibaanku marka uu soo galayo golaha xildhibaanada waxa golo walba waxa qof walba oo xildhibaan uu ku soo galaa tiro cayiman inta shakhsi ee uu codaysay ayuu ku soo galaa taasi waxay xalinaysaa in la kala sadbadsado waxay xalinaysaa in qofna uu ka yimaado magaalo yar qofna uu ka yimaado magaalo weyn laba qofood oo laba cod oo kala duwan laba xildhibaan oo laba cod oo kala duwan ama laba tiro oo kala duwan turjumayaahi in isku awood noqdaan taas waxaan ku xalinaynaa qof walba oo xildhibaanahi wuxuu ku soo galayaa tiro go'an haddii tiradaas uusan haysan ama meeshaas tiradaas aysan ka jirin waxaa lagu darayaa meel kaleeto aqalka guurtida ma lagu dooranayo uguma aanan talagelin lagu doorto codka tooska ee shacabka golahaasi waxaa wada dooranaya oo ka soo baxayaan hogaanka maxkamadaha iyo hogaanka qorsheynta ama xildhibaanada waxaana kaliya oo noqon kara ama gali kara golaha aqalka guurtida dadka wadanka u soo shaqeeyay ee xilalka sare ka soo qabtay sida madaxweynayaasha generaalada ra'iisul wasaare ama madaxweyne iyo dadka noocaasa qofka galaya aqalka guurtidu waa inuu yahay qof u soo shaqeeya wadanka waxaan ugu talagalnay shakhsiga noocaas oo kala oo wadanka u soo shaqeeyay u soo halgamay wadankiisa wax u soo qabtay wadankiisa marka xilka uu ka dago oo waqtigiisa doorashada uu dhamaado amaba uu noqdo qof hawlgab markaan leeyahay uusan qaban karin shaqadii hore in uu galo aqalka guurtida oo wali laga faa'iideysto xigmadda iyo caqliga iyo waayo-aragnimada siyaasadeed ee uu u soo qabtay wadanka ee ku jirta ee inaan banaanka la isaga bixin aqalka guurtida saaniri waxaa si toos ah u soo wada dooranaya ama si wada jir u soo dooranaya golaha maxaakiimta iyo golaha qorsheynta aanu gudubno golaha maxaakiimta golaha maxaakiimtu waa golaha ugu awooda badan qaranka jamhuuriyadda islaamka ee Soomaaliya hase yeeshee ma aha golaha horbooda aan ku celiyo mar kale golaha maxaakiimtu waxa uu leeyahay 11 xubno oo guddigaas iyaga ahi 11 xubnood waxay dooranayaan hogaamiyaha maxaakiimta inta ka hooseysa oo maxaakiimta kaleeto iyaga ayay hoos tagaan waxaa dooranaya marka ugu horeysa golaha maxaakiimta maadaama aan lagu soo dooranayno codka shacabka waxaa isla dooranaya golaha fulinta oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha qorsheynta oo ah xildhibaanada iyo aqalka guurtida ama xeerbeegta taasi waxay xalinaysaa in ay timaado in si gooniya loo tixgeliyo amar ka yimid golo gooniya sida madaxweynaha kaleeto oo ay noqoto musuqmaasuq wax lagu abuuro waayo qofka bini aadamka marka xilka aad u magacawdo adigu waad ka qaadi kartaa ama abaal baad ku leedahay xataa haddaadan ka qaadi karinin sidaa daraadeed waxaa macquula 100% in ay timaado musuqmaasuq oo hadhow aad codsato in wax lagu sameeyo waxyaabaha wadankeena dib u ridana taasi qayb ayay ka tahay sidaa daraadeed golaha maxaakiimta waxaa si wada jir u soo dooranaya labada hogaan ee kaleeto hogaanka fulinta iyo hogaanka qorsheynta oo ah xeerbeegta sida xildhibaanada iyo aqalka guurtida golahaasi shaqadoodu waxay tahay in ay hubiyaan in wax walba oo lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey ay hirgalaan inay hubiyaan wadanka inaan inqilaab lagu sameey karin inay hubiyaan dastuurka islaamka inaan lagu xadgudbi karin xeer kasta oo ka soo baxa ama ha ahaato aqalka fulinta ama golaha hogaanka fulinta ama hogaanka qorsheyntu inuu yahay mid waafaqsan dastuurka islaamka koow isla markaasna waafaqsan xeer hoosaadkii lagu heshiiyey waxaan rabaa inaan isweydiino su'aasha mar haddii aan qaadano dastuurka islaamka oo aan u baahnayn wax dastuur dejiya ama sharci dejiya aan u baahnayn
maxay tahay shaqada xerbeegtu sida aqalka gurtida iyo xildhibaanadu aan ka jawaabay su'aashaas shaqadoodu waxay tahay wadan walbaahi ama bulsho walbaahiba waxay leedahay xeer kaabayaal hoose sida maalan in ay ka fakaraan xagee ayaa la geynayaa ama laga dhisayaa jidadka qaarkood xagee ayaa u habboon in wadanku uu horumar ka gaaro sidee wadada traafigu ama baabuurta u marayaan dhinacay ka marayaan canshuurta meeqaa la qaadaya marka laga soo tago zakada iyo canshuurta goonida ee Allah subhanahu wa ta'ala dadku ku waajib yaal sidee loo maamulayaa internetka ama social media waxay la mid sharciyada noocaas oo hoose oo aan shaqo iyo shuqul ku lahayn dastuurka islaamka ayay tahay shaqadoodu inay dejiyaan sidoo kale inay ka turjumaan codka shacabka cabashada shacabka oo markii dhibaato ay meel ka dhacdo ama qayb ka mid ah shacabka ama gobol ka mid ah shacabku ay rabaan inay codkooda ama dhibaatada haysata in dawladdu wax ka qabato inay noqdaan dadkii ayagu u turjumi lahaa oo warkaas sheegi lahaa aanu galno marka hoggaanka fulinta hoggaanka fulintu wuxuu ka koobanayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen labadaasi waxaa si toos ah u soo dooranaya sidoo kaleeto shacabka Soomaaliyeed labada gole ee la dooranayaahi waa golaha fulinta oo madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka ama hoggaanka fulinta madaxweyne ku xigeenka iyo hoggaanka qorsheynta qaybtiisa xildhibaanada doorashada shacabku uu qabanayaahi waa intaas marka laga hadlayo dawladda dhexe ee dadka u dhaxaysa sidoo kaleeto waxaan u gali doonaa dawlad goboleedka ama maamul goboleedka nidaamka noocaasa qaybta hadda aan ka sheegnay waa qalfoofkii ku dhigto waxaa jira sharaxaad badan oo hoose oo ayadu loo baahan yahay inaan aad ka akhrisato ama shacabka Soomaaliyeed ku akhrisan doono buugaagta aan qornay ama nidaamkaas aan dejin nidaamka isagaahi waxaan sameynay labo ciidan oo military ciidan hoostaga hoggaanka fulinta iyo ciidan hoostaga hoggaanka maxkamadaha waxaan kaloo sameynay laba sirdoon oo labaduba shaqadoodu ay tahay sirta inay raadiyaan si ay wadanka u difaacaan iyo sirta wadanka laga raadinayo inay ka hortagaan espionage and counter espionage waxay kala hoostagaan hoggaanka fulinta iyo hoggaanka maxaakiimta arrinta sidaas aan u sameeyno waxay tahay kow inaan la inqilaabi karin wadanka generaal inuusan inqilaabi karin ama madaxweyne inuusan inqilaabi karin maadaama awoodii ay kala qaybsan tahay labadaas awoodood ay yihiin laba awoodood oo aan isku darsami karin kala qaybsan islana tartamaya inaan qolo ku xadgudbin wadanka labadooduna waxay mar kasta fulinayaan heshiiskii lagu heshiiyey oo ahaa dastuurka islaamka iyo xeerkaabyadii ay soo dejiyeen golaha xeerbeegtu waxay labadaas hoggaanka maxaakiimta iyo hoggaanka fulintu shaqadoodu tahay hoggaanna inuu shaqadii fuliyo hoggaanna inuu ku fiiriyo inuusan ku xadgudbin shaqadii hoggaanka fulintu shaqadii inuu fuliyo hoggaanka maxaakiimtuna inuu ku fiiriyo inaan lagu xadgudbin shaqada iyada waxaan gudbi doonaa difaaca wadanka iyo waxyaabaha kala soo socda waxaan rabaa inaan ku daro intaas hoggaanka maxkamadaha oo kaliya ayaa qof xiri kara hoggaamada kale waa soo dacway kara madaxweynaha awood uma laha inuu xiro shaqsiga uu rabo qofku rabana shaqada kama heli karo wax walbaahi waxay marayaan maxaakiimta waxay maxaakiimtu ay u aragto inay sax yihiin uunbaa wadanka soconaya iyo shaqada loo dhiibtay hoggaamada kala duwan aan u gudbo marka maamul goboleedyada intaasi waa dawladda dhexe waxaan ugu talagalnay in ay noqoto nidaam la isku kala ilaaliyo hoggaamadaas iyaga ahi hoggaan qof ka shaqeeya hoggaan sida hoggaanka fulinta hoggaanka maxaakiimta iyo hoggaanka qorsheyntu kama shaqeyn karo hoggaan kaleeto مثلا haddii aad tahay xildhibaan ama aad ku jirto aqalka guurtida labada hoggaan oo kaleeto midna shaqo kama qaban kartid aan si kooban marka ugu gudubno maamul goboleedyada waxa ugu horeysa ee aan rabno in aan idin sheegno waxa weeyaan meesha dawladda dhexe ay leedahay saddex hoggaan ayagu waxay leeyihiin laba hoggaan labadaas hoggaan waxay kala yihiin hoggaanka qorsheynta iyo hoggaanka fulinta hoggaan maxaakim ayagu ma laha wax alla wixii ku saabsan dacwo iyo maxkamad waxay hoos tagayaan si toos ah waxaa maamulaya hoggaanka maxaakiimta ee dawladda dhexe madax bannaanida noocaasa gobolladu ma laha dawladda tala ku nool ay dhisayso dawladda maamul goboleedyada qofka maamulo ama la soo doorto loogu yeeri maayo madaxweyne waxaa lagu yeerayaa madax goboleed waayo
dhibaatadan haysata maanta waxay ka mid tahay in erayada aan leenahay ay u turjumaan shacabka qaarkiis ama caalamku arko isku qasan fikir ama aragti oo ay ku qasabto madaxweynayaasha waxaan ugu yeerno maamul goboleedka ama sida anagu tala ku noolnaano ugu yeerno madax goboleedku in uu assuum gareeyo ama uu qaato fikir ahaan ay ka dhaadhacdo inuu leeyahay awood la tartami karta madaxweynaha dawladda dhexe arinta iyada waan bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa madax goboleed madax goboleedkaasi waxa uu awood u leeyahay ama gobolku wuxuu awood u leeyahay maamulkiisa hoose oo lagu falgali karin intaan ka ahayn maxaakiimta waxa wixii ku saabsan maxkamad wixii dambi gala iyo ilaalinta shuruucda inaysan ku xadgudbin dastuurka islaamka waxay awood u leeyihiin inay samaystaan xeerkaab hoose oo gobolkaas gooni u ah laakiin xeerkaabkaasi waa inuu labo shardi leeyahay kow inuusan ka hor imaan karin dastuurka islaamka labo inuusan ka hor imaan karin xeerkaabyada u qoran dawladda dhexe labadaas bayna iska ilaaliyaan shakhsiyaadka la soo doorto ee maamul goboleedyada laga soo doorto uguma yeerayno xildhibaan waxaan ugu yeeraynaa howlwadayaal waayo iyaduna waxay calaamo u tahay kala saaridda awoodda xildhibaan haddii uu dawladdii dhexe ku jiro ama xeerbeeg dawladdii dhexe uu ku jiro maamul goboleedka oo hoos yimaada madax goboleedka waxa ay yeelanayaan maamul goboleedyo wax la yiraahdo nidaamka noocaas ee dawladeed ee anagu reer tala ku nool haddii aan nahay inoo qoran ama aan qornay ama aan waddanka inaan ku maamulno waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino dhowr shay oo hadda dhibaato oo waddanka ka jira shayalkaasi waxay yihiin kow inqilaab waddanka inuusan imaanin labo in shacabka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan dawladooda nidaamka noocaas markaan qaadano waxaa imaanaya in wadaniga Soomaaliyeed kow uu jeclaado waddankiisa mar hadduu og yahay inay cadaalad jirto maxkamada cadaalada oo diinta islaamka waddanka ku dhaqaya ilaalinaya madaxweyne cadaalad oo islaam oo ku dhaqaya diinta islaamka waddanka haddii aad og tahay inay jirto qof walba wuxuu ku kalsoonaanayaa dawladda u dhisan waxaa yaraanaya musuqmaasuqa waxaa sidoo kale yaraanaya maadaama saddex hoggaan oo kala duwan ay inoo jiraan oo aan yeelano waxaa yaraanaya musuqmaasuqa iyo faragelinta shisheeye ee ka imaanaya bannaanka waxaan macquul ahayn saddexdaas hoggaan oo kala madax bannaan oo qolo aysan amri karinin isfiirinayo oo isku fiirinayo waxay ku heshiiyeen in faragelin shisheeye ay yaraanayso haddii aysan dhammaanba waayo saddexdaba hal mar ma wada farageli karaan waxaa sidoo kale meesha ka baxaysa in shakhsi uu damco inuu wuxuu rabo waddanka uu ka samaysto sidoo kale waxaa meesha ka baxaysa shacabka Soomaaliyeed inay aaminaan in qof uu khiyaami karo waayo waxaan rabaa inaad fahamtaan aaminaadda shakhsigu uu aamino ama qofka wadaniga ee Soomaaliga uu isugu kalsoonaan dawladda waa cilada ugu weyn ee haysta maanta kasoo cilada qofka madaxda ah inuu qaa'in yahay waxa ka sii daran inaad adigu aaminto haddaad wadani tahay inuu qaa'in ama waddanka uu sirayo ama uu rabo inuu xil isku dhajiyo iyo wixii la mid waxaan rabnaa marka dawladda noocaas ee tala ku nool ay wado waxay tahay waa dawlad aan ugu talagalnay in Soomaaliya aan ku gaarsiino ama ugu hormarino dhammaanba dawladaha caalamka ka jira inay noqoto dawlad xoog badan dawlad kalsooni leh in meesha maanta aan mashquulka ku nahay yaa madax inoo noqonaya iyo qabyaalad waxa la yiraahdo inaan ka fakarno sideen waddanka u horumarino sidee baan tilaabooyinka u qaadnaa caalamka waayo haddii ay dhammaato dhibaatadii iyo fakarkii iyo walwalkii inaga hayay dhibaatada dawladeed ama dawladda inoo dhisan hadday bilaabato inaan isku kalsoonaano waxaa imaanaya inaan horumarinta waddanka inaan ka shaqeeyo waxaan jeclahay dhambaalkan tala ku nool ay wado qof kasta oo islaama oo jecel in lagu xukumo dastuurka islaamka ama diinta islaamka meesha rabta ka joog Soomaaliya caalamka meesha rabta ka joog dhambaalkaas gaarsii walaalaha kale ee Soomaalida ee islaamka ee jecel in islaamka lagu dhaqmo waxaan ognahay waddanka Soomaaliya wuxuu leeyahay cadawga dibadda iyo cadawga gudaha dawladina waxaa lagu cabiraa awoodda nidaamka ay ku dhaqmayso ay leedahay hadday nidaamka ay ku dhaqmayso uu yahay 4.5 midka aan haysano kala tamaantay waa guri dulduleelo badan oo meeshii raba laga soo gali karo faragelinta meeshii raba laga faragelin karo ku kala qoqoban qabyaalad iyo qabiil aan aysan jirin wax la yiraahdo kalsooni ayna fududahay inaan ku laabano dagaalkii sokeeye waddankana uu inqilaab ka dhaco ama qof uu isku xoogo xilka waxaan jecelnahay haddaan tala ku noolnahay inaan idin kaga tagno sidaas waxaan u taaganahay xilka madaxnimada jamhuuriyadda islaamka Soomaaliya waxaan rabnaa waddanka Soomaaliya uu noqdo waddan lagu maamulo diinta islaamka waxaan rabaa hal xabba inaan idin waago
qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay aaminsan yihiin wax la yiraahdo democracy iyo waxyaabaha la midka waxaan rabaa dambaalkan inaad gaarsiisaan haddii aad aaminsan tahay democracy ma aaminsana diinta islaamka haddaad diinta islaamka aaminsan tahay in lagu dhaqana democracy ma aaminsani waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh